waxaa ku xigay nin isaguna marxuum lagu dilay agagaarka Saybiyaano oo isagana ay dileen ciidan la socday nin sargaal saraa oo xabad dhashiike lagu dhiftay isagana nasiib wanaag 3 qof ayaa loo soo xiray oo uu ku jiro ninkii dhashiikaha xabadda dhashiikaha ku dhifta marxuumka taasoo muxuu ahay jid xirmay awgii xabadaha loo riday waxyaabihi aan hore uga hadlaynay oo taxadir xumada ahayna ay kamid tahay laakiin nasiib wanaag gacanta ayaan ku haynaa baaristina waa socotaa waxaa ku xigtay dhacdadii ka dhacday marxuumkii la jirdilay ee kadibna la gubay isagana nasiib wanaag ciidanka booliiska Soomaaliyeed markiiba wuu ka daba tagay falkaas eedeysanihii geystana gacanta lagu soo dhigay iyo cidii la xiriirtay dhammaanna baaristooda socota gacanta booliiskayna ku jiraan maxkamadda awoodda u leh ayaana degdeg loo horgeynaya haddii rabbiga awoodda la ogolaado waxaa ku xigay oo kiiska afraad uu ahaa gabadhii lagu dilay jaamacadda runtii muxuu ahay markiiba ciidanka booliisku goobtii markuu tagay waxaa loo soo xiray arintaas sida aad la socotaan jaamacaddu waa weyn tahay hal iriday leedahay halka iridna waxaa jooga ciidan waardiye ciidankaas waardiyeynayay waxa loo dhigay albaabka waxay aheeday inay jaamacadda iyo waxa ku jira amnigeeda sugaan maadaama jaamacadda la soo galay laba ninoo muxuu ahay wajigoodu dadaya bastoolada wata ay u soo galeen dileen marxuumadda waxaan gacanta ku soo dhignay ciidankii waardiyeynayay ee amniga loo igmaday oo jaamacadda macallinkii u yeeray maadaama ay maanta jimco aheeday muxuu ahay ardayada intaas iyo muxuu ahay eedeysanayaal kale ayagana baarisaa ku socota waxaana rajaynayaa qofkii ugu dambeeyay ee falkaas geystane inaan gacanta ku soo dhigi doono haddii alla idmo baaristina hadda si fiican ay u socodsanayaa wixii baad u jeediin fal dhacayo dadku u jeedaa qof kasta waxaa waajib ah oo saaran ah inuu arintaas dhacaysa dhinaciisa wuxuu ka qaban karo uu ka qabto nin cararayo tuuga oo fal dambiyeed gale fulay waa in laga daba qayliyo maadaama ciidamadii dariiq walba ay marayaan qayladaas muxuu ahay wax badan ay taraysaa laakiin haddii la iska aamuso waxaa la noqonayaa xoolaha waxaa la yidhaha idaha ugu dhiifoonaan yar iyagoo iska fadhiya bahalku iska ruugaya ma qaylinayaan mana cabaadaan laakiin ariga iyo waa qayliyaan yaan la noqonin marka muxuu ahay bahaahinkaas oo kale aan ogaano qof ay cafinayaan ma jirto waayeelaysan cafinayn culumaa u diinaysa cafinayn hooyaysan cafinayn arda ubaxoo soo koraya dalkan iyo dadkan wuxuu taraysan cafinayn sidaa daraadeed waxaan soo jeedinahay oo shacabka ka codsanayaa in loo midoobo in abnigu muxuu ahay annaga uu na wada deeqo nabaddu inay na wada deeqdo qof walba inuu xaq u leeyahay inuu gurigiisa geedka uu joogo nabadda ugu tagto